daawadayaal ku soo dhawaada Laacib Sports oo had iyo jeer idin daadiisa barnaamijyada aynu kaga hadalno kubadda cagta. Haddaba barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa jabkii Jarmalka xalay ku dhacay maxaa uu sabab ahaa. Midda koowaad caado cusub oo lagu arkay qaaradda Yurub gaar ahaan wadamada ku guuleysta koobka adduunka markaa tusaale ahaan loo soo qaato dalka Faransiiska 2002, dalka Italy 2006 iyo dalka Spain 2010. dalka Jarmalka ayaa haatan ku soo kordhay oo 2014 qaaday afartan dal markii ay koobka adduunka ku soo guuleysteen group stage ayay ka soo bixi waayeen. Haddaba maxay tahay sababta keentay in wadamada qaaradda Yurub ka soo jeeda markii ay ku guuleystaan koobka adduunka in koobkaas koobka xiga ay wareegga ka soo bixi waayaan? Sababta koowaad waxay noqonaysaa xagga daada ciyaartoyda oo ay kor u kororto. Tababare Joachim Löw, Marcelo Lippi iyo Vicente Delafoski intaba waxa ay ku guuldareysteen in wadamada ahaa world champion ay mar labaad gruupka ka soo saaraan koobka labaad ee adduunka ee waqtigaasi xigay. sababihii keenay Jarmalka in group stage-ku ka soo bixi waayo waxaa ka mid ah Thomas Müller oo labadii koob ee adduunka ee kan ka horreeyey shan gool dhaliyey ayaana wax dhaqdhaqaaqa muujin. Sidoo kale Mesut Özil oo ka mid ahaa xidigihii kubadsameeyaasha u ahaa Jarmalka oo isaguba iska fariistay oo la moodo inuusan World Cup ciyaaraynin. kaalinta afaraad amaba qodobka afaraadna waxa uu ahaa Sami Khedira oo haatan da'diisu ay marayso 30 sano oo ciyaartii Sweden dalkaasi markuu la ciyaarayay la fariisiyay haatan dib loo soo kiciyay ciyaartii Mexico markii laga badiyayna ciyaarayay. waxaana la sheegaa isaga iyo Javier Mascherano oo u ciyaaray xulka kubadda cagta ee dalkaasi Argentina labaduba inay ciyaartooyda ku rideen walaac iyo niyad iyo qaabka kubadaha ay u sameynayeen amaba ay u difaacayeen oo ahaa mid aad u liita. sidoo kale qodobka shanaad wuxuu ahaa wadajirkii labadii difaac ee Hummels iyo Boateng oo meesha ka baxay maadaama Boateng uu qaatay Rose ciyaartana Jarmalka uu ka maqnaa. qodobka lixaad wuxuu ahaa Manuel Neuer bishii September ee 2017 ayaa ugu dambeysay inuu ciyaaro horyaalka Bundesliga ee dalkaasi Jarmalka oo waa uu ka dhaawacnaa. ciyaarihii ugu horreeyay oo uu ciyaaro oo caalami ahana wuxuu ahaa World Cup-ka haatan socda dalkaasi Russia. sidoo kale qodobka toddobaad wuxuu ahaa bedelkii uu sameeyay tababare Joachim Löw oo aanan bashaqayninba bataatanba oo la sheegay markii ay garoonka soo galeen in aysan wax isbedela ciyaartii ku keenin. qodobkii sideedaadna wuxuu ahaa guushii Confederation Cup ama koobkii qaaradaha waxaa kabtan ka ahaa waqtigaasi kabtan Julian Draxler. waxaa ka maqnaa ciyaarahaasi Confederation Cup uu Jarmalka ku soo guuleystay Manuel Neuer, Boateng, Hummels, Kroos, Khedira, Müller, Özil 7 ciyaartoy. toddobadaasi ciyaartoyna haatan waxa ay noqdeen markii Jarmalka uu yimid World Cup 7 ciyaartoy oo lagu soo bilaabay ciyaarta dalkaasi Mexico markii ay la ciyaareen guuldarada ay kala kulmeen. waxaana sababta la sheegay in Julian Draxler ciyaartoydii waqtigaasi la ciyaarayay markii Confederation Cup-ka ay qaadayeen xulka kubadda cagta ee Jarmalka ciyaartoy aad u dayar. waxaa loo baahnaa tababare Joachim Löw in ciyaartoydii da'da yareed ee Confederation Cup-ka soo qaaday inuu mar labaad garoonka ku soo celiyo. kuwan da'dooda ay korortayna uu iska fariisiyo oo markii uu khibrad uga baahdo oo kaliya soo kiciyo. haddaba natiijada ka dhalatay guuldaradii xalay waxa ay noqotay in wadanka Jarmalka group stage uu markii koowaad ku haro taariikhda 40 sano group stage kuma uu soo harin dalka Jarmalka in 8 uu soo gaaray mooyaane. 2014 Jarmalka waxa ay qarankooda ku soo laabteen iyagoo geesiyaal oo koobka adduunka gacanta ku sida. isbuucyada soo socda iyo bilaha soo socda marka ciyaartoyda Jarmalka ay dib ugu laabtaan dalkooda waxa ay la kulmi doonaan dhaleecooyin badan. sidoo kale tababare Joachim Löw ayaa waxa la qiyaasayaa in mustaqbalkiisa inuu sii hoyn doono xulka kubadda cagta Jarmalka iyo in kala shaki ku jira. inkastoo uu qandaraaska cusboonaysiiyey haddana Joachim Löw mar uu la hadlayay saxaafadda waxa uu sheegay wixii xalay ku dhacay xulka kubadda cagta ee dalkaasi Jarmalka in aysan guuldaro ama ka haritaan World Cup kaliya aysan ahayn ee uu sheegay 10 sano oo u dambeysay ciyaartoydii xulka kubadda cagta ee Jarmalka uu soo dhisayay in uu burbur weyn ku yimid loona baahan yahay in mar labaad Jarmal cusub dib loo aasaaso. haddaba ciyaartaasi waxaa ka ahaa man of the match Heung-min Son oo u dhashay xulka kubadda cagta ee dalkaasi South Korea. daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay khasaarooyinkii isxigay ee dalkaasi Jarmalka ku dhacay iyo waxyaabihii sababay in ay ka haraan koobka adduunka waliba ay ku haraan group stage-ka oo ay ka soo bixi waayaan. daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay xulka kubadda cagta ee dalkaasi Jarmalka oo World Cup xalay kaga haray fadeexad waana markii koowaad ee uu ku haro group stage-ka oo waliba dalka Jarmalka ay guuldaro kala kulmaan wadan ka soo jeeda qaaradda Aasiya
waa markii koowaad ee dal Jarmal oo World Cup ciyaaraya oo wadan Aasiyana guuldarro u geysto lagana badiyo. Daawadayaal barnaamijka intaas ayaanu kusoo koobaynaa. Halka aad ka daawanayseena waa Laacib Sports, inagoo isku duuban oo abbaada laacibna waxaynu idinkaga tegaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.